السلام عليكم أصحاب تقاليق إيكو حرن channel كنا برهان بريقو كسو دو هدي تامرك كوغوريس channel كا سبسكرايب نوصار فيديو نو لايك ريه سودا أصحاب فربدن وقارو أصحاب تقاليق عاو عايدي ودنا تحير وآدي آدا وودا بغن دونتان سومالي وي كلا وريرتو ود باكو دعاي ودناها ورن لغاقل شوالا كلا ويقي waxaa dhexdooda la dhigay qabiil aan dhamaanin iyo qaran la'aan iyo waxaan qalbiga u roonayn waa su'aal qayaxane goormeen wax qabsan doonaa goormeen qayrkeen gaari doonaa khayraadkeena intaan la soo baxno ku qaboobi doonaa dayaca maanta jira ninkii dawlad la'aan kore ayaa dareemi kara ninkaan hooyadii daadihin ayaa dareemi kara ninkii aabihii madfac dilay ayaa dareemi kara ninkii walaalkii dugaag cunay ayaa dareemi kara dawladda noo iftiinta rabbiyo inoo daa madaxda daacadda rabbiyo dib noogu soo celi caawa waxaan rabaa inaan Soomaali weyn meeshaan fariina uga soo jeediyo dadka maalin walba waqtiga nooga luminaya waxyaabaha daciifka oo negative-ka ah oo social media la wareegay inay iska daayaan walaalayaal wix noo soo bandhiga wax qabadka noo qaban lahaydeen iyo sidii aad noo gaarsiin lahaydeen horumar iyo sidii aad dalkeena u dhisi lahaydeen sida warshada noogu dhisi lahaydeen caruurtayada u horumarin lahaydeen uga fakari lahaydeen waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda iyo caruurta 30 sano ay maskaxda ka soo dhimatay sida maskaxdooda u soo kubcin lahaydeen oo xumaanta aaga dhaqi lahaydeen adinkoo waaweyn oo dad waaweyn oo aabayaashin hogaamilaha ah ayaa maalin kasta waxa noo sheegaysiin wax negative ah waxa noo soo bandhigaysiin wax negative ah waa laga qurux badan yahay haddaad rabtaan inaynu hogaamisaan waxaa wanaagsan inaan ugu hogaamisaan wanaaga maahan inaan ugu hogaamisaan xumaanta midda kale madaxda daacadda maanta dalkeena haysata waa loo jeedaa wax qabadka ay qabteen waa loo jeedaa siday dalka u dhiseen siday ciidanka u dhiseen siday garoomaha u dhiseen siday nooga celiyeen meel walba oo nalka soo gali kare duleel walba nalka soo gali kare siday nooga celiyeen waa loo jeedaa okay adinka shala markaad dalka haysateen maxaadna tusteen waxbana ma ina tusin balse waxaa wanaagsan inayna ku noqon wadadii xumeed oo shalay aan ugu hogaaminayseen ee waa inaad wada ka wanaagsan maanta aad noo soo bandhigtaan aabayaasha Soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa inaysan qalalaasa dalkeena aysan galin intee iyagu caruurtooda ay horumar u samaysteen oo ay waxbarasho geysteen in anaga kuweena mustaqbal la'aan aysan dhigin aad iyo aad uga digaya dadka masaakiinta ah oo marasta oo la qaldaayo oo iyagu ay caruurtoodii meesha daadsan yahay oo calooshooda ay meesha daadsan tahay haddana inta lacaga yaryar oo daciif ah la soo siiyo in la yiraahdo madaxdiina magacooda iyo mansabkooda ay haystaan maanta waa la jecel yahay hoos u dhiga iska daaya walaalayaal dad shacabaatiin dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina waa inaad dhisataan oo wax u qabsataan Soomaali waa leedin waaniye waxna waa leedin sheegay balse waxaa wanaagsan wixii leedin sheegay inaad qaadataan qof walba hadduu Ilaahay ka cabsado oo marka hore uu ogyahay in 2 mitir oo qabri la dhigayo hadalka uu sheegay uu dambi yahay qofka uu caynayo uu dambi tahay waxba ma xumaanayaan laakiin qof walba ma oga in 2 mitir la dhigayo ma oga warkan uu ku qowlayo inuu dambi yahay ee waxa la qof walba wuxuu rabo iska sameeyna wuxuu rabo fala walaalayaal ma fiicna Ilaahay laga cabsado alla ka cabsiga waa muhiim mideeda kaleete dalkan anaga iska leh hadduu burburo anaga iska leh hadduu dhismo anaga iska leh haddii wax la qabsado oo intii dawlad la dhisto warshada la dhisto dhulka laamiyada jajaban la dhisto ardayda waxbarasho fiican loo sameeyo agoonta la meeleeyo waxa imaanaysa dawladnimo imaanaysa madaxda maanta joogto waxayna tuseen dawladnimo lama aqoon doorasho lagu tartamo lama aqoon meel looga hadlo lama aqoon gudiyo la soo sooco waa la iska gali jiray waxaa maqli jirna doorasho dhacday madaxweyne hebel la doortay laakiin maanta waxa la marayaa heer nala tuso dawladnimadu waxay tahay wax soo doortana la yiraahdo gudiyana loo sameeyo ala taagan yahay waxay macnaynaysaa in la hormaray oo horumar lagu tilaabsaday waxa u soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin inay dawladdan taageeraan oo ay dawladdan waa dawlad wax badan dawladii hore uga bedelan oo daacad ah madaxda maanta haysatana waa madax daacad ah Allah noo daayo madaxdeena daacad ah Allah dib noogu soo celiyo madaxdeena daacad ah asxaabta qaaliga ah caaw intaas ku ogiyaa muuqaalkayga saaxiibada ku xiran channelkeena videoga like gareeya
sii share gareeya sida u helno saaxiibo sida idinka kale u wanaagsan waana ku mahadsantiin taageeradiina iyo garab istaaggiina saaxiibada ku cusub channelkeena soo dhawaada channelka noo subscribe gareeya videogana like gareeya waana mahadsantihiin